Sida dabiiciga ah, ninka caadiga ah xaaskiisa nolosha hadday isku fahmi waayaan waa inuu furaa ama ay kala tagaan. Laakiin Kim Jong Un, ninka ugu awoodda badan Kuuriyada Waqooyi, madaxweynaha waddankaas, arrinkaas sidaa ugama fududa agtiisa. Wuxuu dejiyay sharciyo si ay xaaskiisa u raacdo, hadday iska leexato haba noqotee in yaroo ka mid ah, natiijadu waa dhimasho, iyadoo weliba loo dilayo qaabka uu doorto. Middan waa nolosha Kim Jong Un. 10 sharci oo adag, taasoo waajib ku ah xaaska Kim Jong Un fulinteeda. Haddii kale natiijadu adiga i daawanaya waad garanaysaa. Sharciga koowaad: magaca dhabta ah. Sida ay u badan tahay, ma jirto cid garanaysa magaca dhabta ah ee xaaska Kim Jong Un. Marka ay aqbasho guurkiisa, way ogeed inay xaas u noqonayso mid ka mid ah madaxda caalamka ugu magac weyn. Ku daro, sidoo kale way ogeed in sharcigiisa uu ka qarin doono aqoonsigeeda caalamka oo idil. Ku daro magaceeda iyo kan qoyskeeda. Xitaa laga yaabee inaysan doonin guurkiisa, laakiin isaga ayaa doonay, wuuna guursaday diidma la'aan. Xaaskiisa waxaa lagu magacaabaa Ri Sol Jo. Lama hubo inuu yahay magaceeda dhabta ah iyo in kale. Sharciga labaad: taariikhdeedii hore. Cidna ma tijaabin karto raadinta taariikhda hore ee xaaska Kim Jong Un, sababtoo ah Kim ayaa ka shaqeynaya baabi'intiisa. Waxaa la sheegaa inay ahaan jirta dhiirigeli isboorti ee xulka, sidoo kale waxaa la sheegaa inay ahaan jirta fanaanad. Laakiin Kim Jong ayaa ku amar raggiisa in la baabi'iyo dhammaan cajaladihii laga duubay. Ku daro kuwa suuqa galay, qiimo kastoo ku kaca in la soo ururiyo lana baabi'iyo si aysan cidna u ogaan taariikhda xaaskiisa. Sharciga saddexaad: qarinta uurkeeda. Waxay aaminsan yihiin baarayaal madax bannaan in xaaska Kim Jong Un ay waajib ku tahay qarinta uurkeeda ilaa laga gaarayo xilliga dhalmada. Amar ka yimid Kim Jong Un. Laakiin Ri Sol uurkeeda bannaanka u yimid 50 beri kadib, waxaana la arkay mar ay ka qaybgalaysay xuska aabbaha dhala Kim, ninka lagu magacaabi jiray Kim Jong Il, taasoo waajib ku ah mas-uul walboo dowladda ka tirsan ka qaybgalkiisa. Sharciga afraad: carruurteeda. Ri Sol waxaa waajib ku ah qarinta carruurteeda, sababtoo ah Kim ayaa mar walba ku dadaala inuu ka fogeeyo indhaha caalamka iyo warbaahinta. Sharciga shanaad: xiriirka jecel iyo guurka. Marka la fiiriyo dhaqanka soo jireenka ah ee qoyska Kim Jong Un, kaasoo ka arriminaya Kuuriyada Waqooyi, xiriirka dumarka la dhexeeya mar walba waa inuu ahaadaa mid qarsoodi ah, taasna waa inay aqbashaa Ri Sol. Sharciga lixaad: guurka. In ninku dhowr dumar guursado sharci ahaan waa ka mamnuuc Kuuriyada Waqooyi, laakiin caadada madaxda ayaa noqotay in gabdho badan la saaxiibo. Ku daro in hal dumar ka badan la guursado, taasna Ri Sol uma bannaana inay ka hadasho. Sharciga toddobaad: furiinka. Uma bannaana Kim Jong Un xaaskiisa inay dalbato furiin wax kastoo dhaca, xitaa hadduu kula kaco khiyaano cad ama uu sharciga waddanka baal maro. Keliya waddada u bannaan ee furiin ku heli karto waa inay isaga disho haddayba awooddo. Sharciga siddeedaad: gabadha ugu awoodda badan Kuuriya. Sida dabiiciga ah, inta badan dowladaha caalamka, marwada madaxweynaha ayaa ah gabadha ugu awoodda badan waddankaas. Laakiin Kuuriya, arrinka sidaa wuu ka duwan yahay. Kim Yo Jong, gabadha ka yar Kim, la taliyihiisa khaaska ah, ayaa ah marwada ugu awoodda badan Kuuriya, taasna waa inay aqbashaa Ri Sol. Sharciga sagaalaad: bannaanka guurka. Ri Sol waa ka mamnuuc inay dibadda u baxdo keligeed. Inuu Kim la socdo waa fursadda keliya ay qoraxda ku arki karto. Sharciga 10aad uguna dambeeya: Kim wuxuu dhisay bulsho xiran dharka dooqiisa. Ku daro jarmada tinta xitaa ha noqotee. Laakiin xaaska Kim ayaa la arkay iyadoo xiran dharka casriga ah ee dumarka ah. Laakiin waxaa la ogaaday taas inay ka hor imaaneen sharciga ninkeeda ama aysan jebinayn shuruucdiisa, iyadoo la ogaaday inay tahay wax lasii qorsheeyey, iyadoo la tusay reer galbeedka in dhaqankooda wax ka mid uun la qaatay.